Ku soo dhawaada dhammaantiin mar kale casharadaydii taxanaha ahaa ee barashada luqadda Jarmalka ee ardayda beginnerska ah ama ku cusub barashada luqadda Jarmalka. Waxaynu ku baran doonaa casharkan accusative prepositionen. Accusative-yada ama meelayaasha xaaladda accusative-ka. Haddaba, maxay yihiin meelayaashaasi? Luqadda Jarmalku waxay leedahay 7 accusative prepositionen oo kala ah bis, ohne, für, durch, gegen iyo entlang. Haddaba, waxaynu tusaalayaasha soo socono ku baran doonaa preposition walba iyo macnihiisa iyo tusaale aynu isaga gelino. Haddaba aynu ka bilowno prepositionka ugu horeeya amba meelayaha ugu horeeya bis. Bis oo macnaheedu yahay ilaa. Waxa badanaa loo isticmaalaa marka ay wax meel ka tagaan ee waxaasi ay meel ku dhammaadaan amba dhammaad ay waxaasi ay leeyihiin. Aynu eegno tusaalahan wir arbeiten von 9 Uhr bis 11 Uhr. Aan ku celiyo mar kale. Wir arbeiten von 9 Uhr bis 11 Uhr. Waxaan shaqaynaa 9 ilaa iyo 11 subaxnimo. Sida halka idinka muuqata, bis waxaan u isticmaalnay oo ay ku jirtaa dhammaadka shay amba waxay la socotaa saacadda dhammaadkeedii. Aynu gelino tusaale labaad. Mach bitte die Hausaufgaben bis Mittwoch. Aan ku celiyo mar kale. Mach bitte die Hausaufgaben bis Mittwoch. Samee layliska fadlan ilaa iyo Arbacada amba hawsha guriga samee ilaa Arbacada. Qaabka aynu u isticmaalnay waad aragtaan. Bal aynu eegno tusaalahan kalena si aad u sii fahantaan. Der 5-jährige Ridwan kann schon bis 200 zählen. Aan ku celiyo mar kale. Der 5-jährige Ridwan kann schon bis 200 zählen. 5 sano jirka Ridwan tirada wuxuu tirin karaa ilaa 200. Ama Ridwan wuxuu tirada gaadhsiin karaa ilaa 200. Macnaheedu waa sidaas. Bis markasta waxay la socotaa dhammaadka ama dhammaadka shayga ayaa loo isticmaalaa sida halkaas idinka muuqata. Aynu eegno ta kalena prepositionka xiga. Ohne oo macnaheedu yahay la'aan amba wax la'aan. Aynu tusaale gelino. Ich trinke Tee ohne Zucker. Aan ku celiyo mar kale. Ich trinke Tee ohne Zucker. Waxaan cabbayaa shaaha sonkor la'aan. Waad aragtaan qaabka aynu u isticmaalnay ohne oo macnaheedu yahay wax la'aan amba la'aan. Aynu eegno tusaalaha xiga. Aynu gelino tusaale kale. Ich gehe ohne dich nach Istanbul. Aan ku celiyo mar kale. Ich gehe ohne dich nach Istanbul. Adi la'aanta ayaan tegayaa Istanbul. Waad odhan kartaa ich gehe ohne dich nach Berlin, nach Mogadishu, nach Hargeysa, nach. Marka waad aragtaan qaabka aan u isticmaalnay ohne iyo oo macnaheedu yahay la'aan. Aynu gelino tusaale kale. Ohne Brille kann er nicht lesen. Aan ku celiyo mar kale. Ohne Brille kann er nicht lesen. Oo kiyaale amba muraayad la'aan waxba ma akhriyi karo. Oo rajaynaya inaad fahanteen prepositionka ama meelayaha ohne. Aynu eegno prepositionka ku soo xigana für. Waxaa badanaa loo isticmaalaa wax tusaale ahaan qof ka socda oo qof kale ku socda amba meel ka socda oo meel kale ku socda. Aynu gelino tusaale. Ich habe etwas für dich gebracht. Aan ku celiyo mar kale. Ich habe etwas für dich gebracht.
waxbaan kuu soo qaaday adiga. Aynu eegno tusaale labaad bal. Diese Blumen sind für dich. Aan ku celiyo mar kale. Diese Blumen sind für dich. Ubaxyadan adiga ayaan kuugu talagalay. Aynu gelino tusaale kale. Herr Umar ist für 3 Tage in die USA geflogen. Aan ku soo celiyo mar kale. Herr Umar ist für 3 Tage in die USA geflogen. Mudane Umar wuxuu 3 maalmood u duulay Mareykanka. Aynu eegno prepositionka xigana oo ah waxaa loo isticmaalaa amba macnaheedu yahay laba macne. Mid waa laga bilaabo oo waxaa loo isticmaalaa saacadda iyo waxaas. mid kalena waxaa loo isticmaalaa. Aynu gelino tusaale. Der Termin ist 13 Uhr. Aan ku celiyo mar kale. Der Termin ist 13 Uhr. Ballantu waa abaaro amba ilaa 1:00. Aynu gelino tusaale labaad. Der Unterricht beginnt morgen 8:30 Uhr. Aan ku celiyo mar kale. Der Unterricht beginnt morgen 8:30 Uhr. Xiisaduhu waxay bilaabmayaan bari laga bilaabo 8:00. Da kommt sie die Ecke. Aan ku celiyo mar kale. Da kommt sie die Ecke. Wata ka soo leexanaysa halka amba wata ka soo leexanaysa geeska amba wata ka soo socota dhinacaas. Intaas macnaba way noqon kartaa. Aynu eegno prepositionka xiga. Durch oo macnaheedu yahay iyadoo loo sii maro amba iyadoo oo loo marayo. Tusaale ahaan meel baad u sii socotaa, meeshaad u sii maraysid ayuu macnaheedu yahay prepositionkan. Aynu eegno tusaalahan. Die Sonne scheint durch das Fenster. Aan ku celiyo mar kale. Die Sonne scheint durch das Fenster. Qorraxdu waxay ka iftiimaysaa daaqadda amba qorraxdu way ifaysaa waxaa laga dhex arkaa daaqadda. Aynu eegno tusaalaha labaad. Wir laufen durch den Wald. Aan ku celiyo mar kale. Wir laufen durch den Wald. oo macnaheedu yahay waxaan soconnaa amba aan sii dhex maraynaa kaynta amba aan dhex soconnaa kaynta. Aynu eegno tusaalaha kale. Zur S-Bahn-Station gehen Sie durch den Park dort. Aan ku celiyo marka. Zur S-Bahn-Station gehen Sie durch den Park dort. Si aad u tagtid goobta tareenka ka dhex bax parkinkaas ama ka dhex bax meesha parkinku ku yaalo. Si aad meesha tareenka u gaadhid u sii dhex mar parkinka. Durch macnaheedu saas ayuu noqonayaa inaad meel wax u sii dhex martid. Aynu eegno tusaalahan kale. Ich schicke den Brief durch die Post. Aan ku celiyo mar kale. Ich schicke den Brief durch die Post. Waxaan ku dirayaa warqadda boostada. Waxaan dirayaa warqadda anigoo sii dhex marinaya boostada. Labada macnaba way noqon kartaa. Amba waxaan dirayaa warqadda oo waxaan ku dirayaa boostada. Durch macnaheeda saas ayuu noqonayaa. Aynu eegno prepositionka xiga. Gegen aad bay u fududahay inaad tan fahantaan. waxaa macnaheedu noqon kartaa ku beegan. Tusaale ahaan waqti ayaa loo isticmaalaa. Aynu eegno tusaalaha si aad u fahantaan. Meine Mutter kommt gegen 15 Uhr. Aan ku celiyo mar kale. Meine Mutter kommt gegen 15 Uhr. Hooyaday waxay imanaysaa abaaro 3:00. Marka aanad garanayn waqtiga cayiman ee ay imanayso ayaad isticmaali kartaa gegen abaaro ilaa waqtigaas oo kale. Aynu eegno tusaalaha kale. Sein Auto ist gegen mein Auto gefahren. Aan ku celiyo mar kale. Sein Auto
ist gegen mein Auto gefahren. macnaha kale ee ay gegen leedahay waa tan gaadhigayga iyo gaadhigiisa ayaa isku dhacay. macnaha kale ee ay yeelato gegen waa kan. mar kalena waxay yeelataa oo loo isticmaalaa waqti marka aad ka hadlaysid. macno kale oo ay yeelataana waa kan heute spielt Deutschland gegen Brazil. aan ku celiyo mar kale heute spielt Deutschland gegen Brazil. maanta Jarmalka iyo Brazil ayaa iska hortegayo, amba maanta Jarmalka iyo Brazil ayaa isku dhacayo. kubad ahaan markay wada ciyaarayaan oo kale iska hortegaya amba isku dhacaya. aynu eegno tusaalahan kalena viele Leute sind gegen Atomkraft. aan ku celiyo mar kale viele Leute sind gegen Atomkraft. dad badan waxay ka soo horjeedaan awoodda nuclear-ka. ka soo horjeeditaan ayaa markana loo isticmaalay gegen. aynu eegno prepositionka xigana entlang. entlang waxaa loo isticmaalaa badanaa toos amba wixii toosan. aynu tusaale gelino geht den Strand entlang spazieren. aan ku celiyo mar kale geht den Strand entlang spazieren. wuxuu socsocod ku soconayaa xeebta. tusaale ahaan xeebta unbuu toos u raacayaa, meel kale ma tegayo. xeebta tooskeedaas unbuu soconayaa. saas ayaa loo isticmaalaa entlang. Übung. laylis, haddii aad cashirka fahanteen isku daya inaad ka jawaabtaan intan su-aalood. markan su-aasha iyo jawaabtu way wada socdaan. su-aasha markaad aragtid joojisa fiidiyowga kadib isku day in aad ka jawaabtid. su-aasha hore gegen mise entlang mise für ayaa ku habboon oo galaysa. haddaba su-aasha maxay tahay? die Pizza ist meel bannaan. dish. fiidiyowga joojiso isku day in aad ka jawaabtid su-aasha. waxay noqonaysaa für die Pizza ist für dich. su-aasha labaad bis mise für mise ohne ayaa galaysa. der Zug fährt nur meel bannaan Hamburg. der Zug fährt nur Hamburg maxaa gelaya meesha bannaan? fiidiyowga istaajiso isku day in aad ka jawaabtid su-aasha. jawaabtu waxay noqonaysaa der Zug fährt nur bis Hamburg, oo macnaheedu yahay tareenku wuxuu soconayaa ilaa Hamburg. su-aasha ugu dambaysa entlang durch mise gegen ayaa galaysa su-aashan. der Bus fährt meel bannaan Stadt. istaajisa fiidiyowga oo isku day inaad ka jawaabtid su-aasha. waxay noqonaysaa der Bus fährt durch die Stadt. basku wuxuu sii dhex marayaa magaalada, ama basku wuxuu soconayaa isagoo sii dhex marayaa magaalada. waxaan rajaynayaa inaad dhammaan fahanteen casharkan. danke, mahadsanid. waad ku mahadsan tahay intaad i dhegaysatay ee aad i daawatay. haddii aad casharka ka heshay fadlan sheer garee oo la wadaag asxaabtaada jecel inay iyaguna bartaan luuqadda Jarmalka. haddii aad haysid wax su-aal ah oo casharka ku saabsan waxaad igu soo weydiin kartaa commenti ahaan. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe garee si aad ula socotid casharo kale oo fara badan.